waxaa xarunta baarlamaanka Afrika lagu qabtay xuska 50 sano guuradii ka soo wareegatay markii madax banaanida ay qaateen 17 dal oo Afrikaan ah iyadoo ay dalka Soomaaliya uga qayb galeen ilaa 4 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dawladda federaalka meelgaarka Soomaaliya. marti sharaftii ka soo qayb gashay xuskan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore dalka Tanzania Ali Hassan Mwinyi iyo safiirada u fadhiya 17 dal marka laga reebo dalka Soomaaliya oo wax safaarad ah ku lahayn wadankan Koonfur Afrika ayaa waxaa si gaar ah loogu casuumay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalkan Koonfur Afrika Mudan Abdulhakiim Maxamed Haadi iyo ku-xigeenkiisa Mudan Ismaaciil Cabdulla Soomane. waxaa la filayay in munaasabadani ka hadlo madaxweynaha dalkan Koonfur Afrika Jacob Zuma inkastoo uu baaqday maadaama uu kulan la lahaa madaxweynaha dalka Botswana. gabagabadii munaasabadani ayaa waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadani waxaana la kulanay xildhibaano kala duwan xildhibaan Sareedo Maxamed Cabdalle xildhibaan Ibraahim Xabeeb Nuur iyo xildhibaan ka socday dawladda dalka Djibouti. bismillaahir rahmaanir rahiim safarkeena wuxuu ka koobnaa 4 xildhibaan members waxaan nahay baan Afrika 5 xildhibaan nahay hal xildhibaan waa naga maqan yahay. sidaad u ogtahay maanta waxaa loo dabaaldegayaa 17 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay maalinta xornimada qaateen waay after 50 sano ka bacdi waay. waa ogtahay maanta wadciga aan ku sugannahay haddaan nahay Soomaaliya bacdal 50 sano ayaan nahay dhulka wadankaas 50 jirsadayba maanta baaba'san aqoon-yahanadiisana la baabiyey. marka ani waa soo koobi lahaan dhihi lahaa international community calankaas 50 jirsaday inay ixtiraamto oo dadkiisa asaga ayna baabi'inin oo yahay wadan ixtiraam leh oo calan leh inuu yahay ay ogaato maadaama 20 sano burbur xun oo nagu dhacay. sidaas ayuu ku salaysan yahay annaguna markaa waxaan ka soconaa dalka Soomaaliya saas aan uga soo qayb galnay si joogto ah aan uga qaadana roolka aan leenahay. waad mahadsantahay. sad arkayseen saaka waxaan ka sheekaysanaynay nus qarni ayaa ka soo wareegay 17 wadan oo Afrikaan ah oo Soomaaliya ka mid tahay waqtiga ay taabeen gobonnimadoodii. marka waxa sad arkayseen waxa jirtay bay ahayd khudbad ay ka soo jeediyeen 5 gudoomiye ee 5 gobol ee Afrika ka koobantay xildhibaanadooda kala gudoomiya. anigu sad arkayseen waxaan matalayay matqaana gobolka matqaana Afrikada bari anigu afka gobolkaas ku hadlaya waxaan aad aan carabka ugu adkeeyay qadiyada Soomaaliya ku sugantay oo qadiyada araga qadiyadaas oo u baahan in adduunyadu u guto gaar ahaanna dalalka Afrika inay u gutaan wax ka qabtaan u baahan. si kastaba ahaatee jawiga xafladani ayaa wuxuu ku soo gabagaboobay jawi aad u heersareeyay iyadoo markaas ay isugu hambalyeynayeen dhammaan 17 wadan ee Afrikaanka ah ee ka soo qayb galay sanad guuradii 50aad ee ka soo wareegatay maalintii wadan walba xoroobay. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Pan African Parliament, Johannesburg.